Assalaamu calaykum, waa Doctor Mawlid ku daro dhammaantiin salaamaya mar kale iyo faytamiinadii weeyaan markan iyo vitamin B3 ama loo yaqaano niacin. Faytamiinkani sida B1, B2 oo kale waxa uu yahay water soluble ama biyuhu ku milmaya. Waxay ka dhigan tahay waxa weeyaan in ay tahay mar walba in la qaato. Taasi waa taas. walow kan laftiisa oo aan ahayn cunadu in lagu qaatay sidoo kale laakiin kan uu ku hor labada hore kaga duwaya isagu yahay synthesized endogenously jirka gudihiisa laftiisana waa lagu sameeyaa markaasuu kaga sii duwaya kuwa kale. Marka aynu kusoo noqonay waxa uu ka kooban yahay waxa weeye waa laba enzymes weeyaan oo loo kala yaqaano NAD iyo NADP. NAD-gaas maxay ka dhigantay waa nicotinamide adenine dinucleotide. waa ka qaabilsan weeyaan metabolismka baruurta faatka carbohydrateska amino acidska. NADP guna metabolismka maxay ahayd glucose iyadu gaar u qaabilsan yahay nicotinamide adenine dinucleotide phosphate-kaas. Marka waa kuwaas waa maaragtay sidii baruurta duxa ama baruurta ama carbohydrateska iyo maaragtay proteinska looga dhig lahaa wax kuwa ay jirku adeegsan karaan ama ATP looga samaysan karo lahaa tamar ayuu qaabilsay bahalkan faytamiinka. Marka aan ku soconnay waxa laga helaya xagee laga helaya dee waxa weeye waa cunadii weeyaan baa ayuu laga helaya sidoo kalena waa mid gudaha laftiisa lagu sameeyo oo jirku laftiisa uu soo saarayo. Marka haddii la waayo waa inuu iman doonaa cilada keento vitamin B3 deficiency laakiin hadiiba la waayo waxay ka imanaysaa maxay in ay qofkaas aanu cuno qaadan aanu cuno cunayn ama xanuuna jiraan jiitamaya ama maaragtay qofka kale soo kale HIV AIDS oo kale inuu hayo ciladahaas oo dhan baa jira ayay iman karaysaa. laba mid weeyaan ama waa inuu cuno maaragtay qofkan cunayn soo kale ay hayso sidii cashar kore ka sheekeynay anorexia nervosa tusaale kale inuu kaba caagan yahay cuno oo dhan ama aanu rabinba oo nafsiyan u arkayo inuu ku maaragtay buurnaanayo ama waxyaabo kale ay jiraan. Sababahaasaa markaa keeni karta in tan la waayo maaragtay qofka aad naysinto jirkiisa aad u hooseyso. Cunooyinka laga helayo waxaa ka mid ah greens oo kale waxaa ka mid ah ama badarka waxa la dhaho waxaa baxa sidoo kale legumineska ka mid ah waxaa ka mid ah lowska waxaa ka mid ah hilibka waxaa ka mid ah maaragtay waxyaabahaas aan soo sheegnay sidoo kale saliidda laga soo saaro maaragtay nutska oo kale tusaale noocyadiisa kala duwan saliid baa laga saari karaa ama saliid saytuunka ha ahaata ama kuwa kale marka way badan yihiin waxyaabahaas baxaya gabaldayaha maaragtay midhaha ka baxa ee saliidda laga sameeyo waxyaabahaas oo dhan seedskaas saliidda laga sameeyo ayay ku sii jirtaa iyaduna aad ugu badan tahay. Hilibka iyada way kaga yartay maaragtay ku yartahay waxyaabaha ku jira laakiin kuwa kale ayay ku badan tahay. Vitamin B3 deficiency-ga ama niacin deficiency-ga ciladaha ay keento waxaa loo yaqaanaa cilad baa jirta la yidhaahdo pellagra. Marka waxa lagu soo koobaa 4D baa lagu soo koobaa waa diarrhea, dermatitis, dementia iyo D-da kale iyadoo ah haddii intaas laga qaban waayo qofka inay ku keeni karto maxay death bay u keenaysaa waa dhimasho ay u keenaysaa. Marka pellagradaas ay dita ugu weyn la arkayo calaamada ugu weyn la arkayo waa tan dermatitiska oo qofka waxa ku dhacay qallafsanaan diireed baa ku dhacaya qofkaas qallafsanaanta ku imanaysa qaybta ka arkay marka qaarkood waxay ku koobantahay qaybta sare gaar ahaan waxay ku dhacdaa iyo wejiga meesha inta maaragtay ku dhacdo cadceedu inta ku dhacayso ayay u badan tahay inay xaaladahaasi ka biloobaan. marka qofka waxa lagu arkayo waa shuban baa lagu arkaa marka dermatitisku waa calaamada guud ee labada arkayo marka qaarkood waxay noqotaa sida siliska kale noqotaa waxay ku wareegtaa qoorta kaliya ayay qofka ka dhacaysa marka qofka si ugu imanaysa wal marba saan sheegnay inay tahay dhanka cadceedda inay la xiriirayso
meesha aad kusii dhacdo ayaa dhibaatadan ku imanaysa. Waxaa kaloo sii raacaya dimenshiya qofkii ilow, waayo bahasha waxay ka qayb qaadanaysaa dhisitaanka neerfaha laftoodii bay ka qayb qaadanaysaa oo degeneration baa ku dhacaya. Markaas waa taas oo saas markaa waxaa ku imanaysa ilowgaas ku imanaya dimenshiyada ama calaamadaha hadda qofka lagu yaqaano asaasiga marka ku dhaco kale aan kala garanay waxba calaamadahaasuu yeelan karaya. hadday sii socotona dee waa halis bay ka dhigantay, waa qofku wuu dhiman karaa. haddaynu kusoo koobno daweyntana waxay la mid tahay sidii kuwii hore oo kale una vitamin la-aanihii hore kasoo sheekeynayno. dee mar haddaynu meesha vitamin baa maqan, in vitaminkii qofka wixii noqonaysa la siiyo ay noqonaysa buuxi meelaha bannaan ay noqonaysa si loo daweynaya. waa niacin in la siiyo ama nicotinamide supplements. marka wanaga sheegnay niacin lafteedu nicotinamide ka timaado ay noqonaysa markaas halkaas laga wadaa. oo waa in vitaminkaas niacinta la yiraahdo la siiyo ama bada dietary ahaan loo siiyo. marka waxay noqonaysaa cunooyinka kasoo sheekeynayna qofka haddii ay ka maqnaayeen marka loo buuxiyo oo la yiraahdo tan iyo tan laga helaa ka cun. laakiin waxyaabaha si degdeg qofka marka la rabo in hawsha loo soo kabo waa in si toos ah loo siin niacin. markaas kusoo koobina waa mahadsantihiin. waxaan jeclaan lahaa inaad la sii wadaagto bulshada inteeda kale, sidoo kale inaad like saarto iyadoo lafteeda waa hab kale oo uu sii gaarsiiyo youtube-ku dadka kale si ay uga faa'iidaystaan. ilaa soco waad mahadsantahay. wasalaamu calaykum.